ku dhawaad 148 muwaadiniinta Soomaaliyeed oo u badan rag iyo dumar ee maanta ay dawladda federaalka Soomaaliya ku soo celisay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa aad ku arkaysay qaarkood markay ka soo degeen diyaaradda oo ay soo caga dhigatay gudaha garoonka Aadan Cabdulle in ay wehlinayaan caruur ugu dhalatay dalka ay ka yimaadeen ee Yemen halkaas oo ay sanado badan ku noolaayeen gaar ahaan magaalooyinka dalkaasi sida Cadan dawladda federaalka Soomaaliya hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaysa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo IOM ayaa markii ugu horeysay si toos ah diyaarad uga soo qaaday magaalada Cadan ee dalka Yemen iyadoo garoonka Aadan Cabdulle si diiran ay ugu soo dhaweeyeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu qaabilsan soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta UNHCR iyo IOM wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdisalaan Cabdi Cali oo ka hadlayay soo dhaweynta ayaa ku booriyay muwaadiniintan wadan jaceelka isagoo sheegay in daltabyo iyo jaceelka dalku yahay lagama maarmaan waxa Ilaahay mahadiisa in halkan aan ku soo dhaweynay dad Soomaaliyeed oo laga soo celiyay dalka Yemen oo maanta soo gaaray dalkoodii hooyo magaalada Muqdisho dadkaas oo markii ugu horeysay lagu keenay flight toys ah oo Dal Airlines ay keentay tiradooduna ay dhammayd 148 qof oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa dalka Yemen ayaa maanta waxay fursad u heleen inay dib ugu soo laabtaan dalkoodii hooyo ayagoo nabad qaba ayagoo caafimaad qaba taasna waxay tusaysaa muhiimadda ay leedahay dadka doonaya inay tahriibaan ama dalka ka baxaan in wax badan oo muhiim ah aysan ka horreynin oo dalkooda hooyo ay u tahay meeshii in ay ku soo laabtaan ay muhiim u tahay